magaalada Den Haag waxaa marti nooga ah nooga imaaday wadanka Canada Sayid Yaasiin, Sayid Sheekh Cabdiwahaab, Sayid Xaaji Faqi, Sayid Xaaji Ibraahim oo hadda loo wakiishay loo doortay dariiqada saalixiida الله يرحمه أبيس مدعو بريودي. اللهم صل وسلم هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه حاضر اللهم قبره الكريم بعرف شديد الصلاة الشيخ محمد شيخ إيكر دكتور الشيخ أهل البلد كأه أنسينا وبعدين عبدك القصير رجينا إن شاء الله تعالى. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. marka hore waxaan leeyahay ilaahay jannada ha ka waraabiyo afdal shahr oo shahrullah al-muharram oo rajab ayaanu ku jirnaa ducadana la ogolaado waxaan kaloo aad ugu soo dhaweynaa walaalkeena oo ka yimid Canada isagana waxaanu leenahay sabar ilaahay ka sii odayga waxaa jira ilaahay wuxuu leeyahay ayadiisu ku yiri kullu nafsin dha'iqatul maut mawtka nin ka fakar karo male nin ka fakar karo male ولو هدوم متخنجب الكون فإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون العالم الغيب والشهادة وحال إلهي كبرينا بشان وجره إن أن فاتحة خاصة وآخرنا إن قبره سي إلهي واسع وجهه إلهي جندي سي فردوس إن إلهي بليه بعد جيسنا عنا يعني إلهي ما فتنيه طلبات وحير وحان ربا إن إذين حسوسيو بشكل رجب دور وين أي عيارتا حق إسلامك دك بدي ما أوجا ضد واحد يراهن وبلوين كلا كلام بتاعي وحوي أفرت بلوت وإلهي دورتي أي كم بتاعي سدح ويسكو حريهين هلنا جونيو مد جونيو هنا رجب صلاة أنا قصب نقول لي إن دكانو وما ننتي إلهي سوء مي والنبي جاني لفرين قصة الله هي قصة أول واي محاجرة الإسراء والمعراج لواتية تضمنا رجب والليلة دي أو نبي العلمي لقوا دي مكة لقيي بيت المقدس لقوا دي لقيي سماوات كلها الإسراء وحال يرى سفر أرضي حاجرة إلهي ودو أولها إنه النبي مكة كقالوس دايركتي لسماوات كاللقي لكن حكمة وين باكو جرتان حاجرة النبي الكهر بابور مجري ترين مجري وحل الراعة مجري وحال الراعي جري فرس أمجيل ولا اللي أوجه التاريخ ده مكة مركي لغا صوبحو ومقدس ليمادو بل أيان لوس عنجري بالمه والوسن الله بل أي أبهنيت الماشي متاعه ولا صنعه لكن ثلث الأخير أيان نبيها لدي الميو اللي إسراء سفر أرضي وبلاد معراج كان ومتقان أدو إلهي كوريهي ملكا لغا قاضي سماوات كورن أيان لكي سماوات ككوات إلا كالطلوات مركو مكة يمد مركو مقدس يمد وحول كل من لباتن إيشان النبي أنبياء ذا أو كم يدعى لباتن إيشان وإنت الروح الصي
qur-aanka inta lagu xusay oo lagu sheegay. maxaa jira haddii aan la yidhaha anbiya iyo rusul waa la tirinaa 124,000 laakiin inta la xusay oo nabiga dujiyey waa 25 taas oo dhulka ku arkay ayaa haddana ilaahay awood u siiyey inuu cirka ku arko samaawaat walba, samaawaat اlأuulى sayida aadam ilaa oo mataqaan 7 samaawaati ka tago ilaa qaaba qowsayn. markaasna 5 waxaa lasoo siiyey 59 oo 5 laga dhigay. hadda haddii 50kaas nagula dhaafi lahaa 5tiyaaba dhib wax loo haynin mana dukan lahaa markaa dadka 5tiyaaba awoodin maanta. marka asalaa hiya silatun bayna alcabdi wa rabbi, waxa weeye xiriiryaha qofka haddii la jecel yahay hadiye fiicana la siiyaa. hadiyada fiican oo nabigeena la siiyey iyo ummadiisii waxa weeyaan salaada. lanno saasuu ilaahay aayadiisu ku leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi. khayra umma qof haddii lagu sheego wanaag ama kan dadka ugu horeeya yahay hadiye fiican oo la iloobi karin in la siiyo. hadiyadaasna waxay noqotay in had iyo jeer 17 maalmood 5 jeer 17 rakac ilaahay wejigiisa inaan istaagno. maxaa jira ka hor anbiyadii hore salaada ay dukan jireen rakacataani bilghadaati wa rakacataani bilcashiya keliya ayay dukan jireen. awoodeedii dhan waxay ahayd in ilaahay wejigiisii ay istaagaan 2 rakaca maalintii oo dhan 2 rakac habeenkii oo dhan. laakiin ummadda nabi maxamed fadligiisii ay ku naqdeen khayra umma, ilaahay wuxuu siiyey aas u ogolaaday ayaa hadiye loo siiyey 5 jeer in ilaahay wejigiisii aanu istaagno. marka kontonkaas faruddat ilaa 50 camaliya, laakiin ajarkeedii 50 sana ayay noqotay. nabiga markuu soo noqday dad baa waxay yidheen maya ma dhici karto see wey. abubakaraa loo tagay, asxaabtiyaa loo sheegay, waxaa leeyahay war ninkaan nabiga saaxiibkaadii shalay wuxuu sheegay wax buu ahay, hadda wuxuuna leeyahay meel annaga aan u socono aan bil kusoo noqono ayaa xalay la idheelmiye la geeyey. waxaa la ii qaaday iska dhaaf cirkaa la ii qaaday. marka 2 suurad ayaa ilaahay ku tusaaleeyey, tan dhulka iyo tan cirka. ilaahay markuu yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi, alcabd wuxuu ku yahay jism wa ruux, ruuxun wa jism. bal ina ninka hadduu dhinto addoon lama laha, waxaa la waraa meydkaa loo naxariisto jismiga mataqaan. marka aayadda kale cadaynayso samaawaadka loo qaadayna waa suuratu wanajmi idaa hawa ma dalla saaxibukum wama gawa wama yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa callamahu shadiid lquwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. كل يوم محمد مرينا ولسع التلاك وإلى الخصوصنا وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمن. مركا بشان قيمة يا قاي أولى أمد النبي محمد فضل لي وحان لنا هاي قبل واسع يعني له ولده جنة فردوس كين إلهي قليو قبريسي روضة من رياض الجنة إن إلهي ولده حفر من حفرنا إلهي كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا مهزتي صحيمي الحمد لله وكفى وصلى الله على الحبيب المصطفى ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا الكينو او حلكان لو دوبين قرب كيسا الله قالوا أنا نريد هولندا وقرب تاقلناهي سفر كيسا سوجيد سلامة سيجيد سلامة نبت قيدو إي نحريس إي أجر بدن الله وافجيه ببركة سورة لإيلاف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلاف من رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عبسي الله ما تصر عذر الله ما تصر قاعدنا الله ما تصر خوشي وبحينه خوشي لوليباني ببركة سورة النصر
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أفتح خير الله فرق، أفتح خير الله فرق، أفتح خير الله فرق. جماعة لنا الله حجي، الله بركايه، الله بركايه، الله ماسه في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد ورحمة الله وبركاته. markii aan ka hadalno afka maxaa tiriga iyadoo siin dhiba marka afka kii was ka hadala marka waraan saan ku kulmay dariiqa wasaan ku kulmay dariiqa tusaalaha marxuumkii taan ka dhashaagiyo dhanadii ilaahay ilaad rahma Allah siisa bacdan dariiqadii ayuu mawduuciya سيدنا وهان كوكويو كان ابنو كوكويو هان كنترو شياسم شي عبد الوهاب سيد حاج إبراهيم سيد حاج إبراهيم ودريقة لدوبي طريقة تي والآن وسك بالراود بيشو أما وسك كاش إنجي أنا ما أجا طريقة سلسلة وايا مركا سلسلة هي سلسلة هم كلاهي مرة بجوشة مركا هنا كورهم مشايخ تاريخ الآن كورهم وبرشيد صورنا الدنيا حتى الرحمن من سديرة أو شمس هاي الجباري بلاد سديرة شيخ كنا ونكوين شيخ كنا ونكوين مدن كأي وشيني مركا شيخ كيو بمدرسة سو شيخ مركوات سامريو ساقبهين مركا لما كان جامعة مكجرية سودان وكجري dariiqadana unta ka hor dadka saama maran ma agunaana dad oo saas diinta hanuunka dheeruha ma aguna ilaahay awliidaas la iska aguna ma ogyihiin sheekha kana waxaan kana unu ka hadalna diin ahaan lan eed walsa aan baradayo alxamdulilah marka lamaad waxaan kana nin toosunyo dariiq mustaqiimka agi kilifadgariga toosunyo ilaahay ku waari وأنا كان أجي لكن نودوري لأن هلك إيه سون جديد كلا أما سقى الدين وأجي أنا كهذا لما مركب طريقة دي ساسي أكتر طريق ما أجي إسكتين بروش يوني أمر إنه هي إسكت هذا شو طريقة هرت أكتر كنا ولي ساعة كدين بروش المشايخ يورسي كدين بروش نيوكر وكدين بروشنا وركي كان نعطوس على الجابس علوم بدنا نقدم بروش تروح توصل هذا الشيء لكن هذا الجو تصل القابسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومربينا وأستاذنا وقائدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله ورسوله الذي أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا عن كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لذا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد ضش الصحبة والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحبابنا الكرام أحييكم أفضل تحية الإسلام
تحية من عند الله مباركة طيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام نرحب شيخنا شيخ ياسين شيخ عبد الوهاب سيد هاجي فوز سيد هاجي إبراهيم شيخ محمد شيخ حسين عثمان الدروب نحييه نرحبه نسأل الله سبحانه وتعالى له أن يطول عمره ويعينه على قضاء حاجاته وعلى قضاء وعلى امتثال أوامره سبحانه وتعالى ونسأل سبحانه وتعالى أن يعينه على اجتناب ما نهى الله عنه جل جلاله. لذلك إخوتنا الكرام الله سبحانه وتعالى اختار له أن يكون خليفا على هذه الطريقة الأحمدية الصالحية الأحمدية الرشيدية الصالحية الحسينية. الآن خليفه نحن معترفون أنه خليف ما دام الله سبحانه وتعالى في حديث المصطفى عليه السلام إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فيقول سبحانه وتعالى إني أحببت فلانا فأحبه فيحبه ثم ينادي في أهل السماء فيقول إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم ينادي في الأرض فيقول إن الله سبحانه وتعالى أحب فلانا فأحبوه فيحبونه ثم يوضع القبول قوله في هذه الأرض كما في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه السلام قال لا يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهى الجنة. بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويقضي حوائجنا. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الذر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله المصطفى المستغفر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المسابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعساك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى طيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آمنت بالله وصدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصلي عليه. Honorable audience, distinguished guests, our special guest from America, United States of America, Canada, we welcome here, mashallah. Alhamdulillah, as we are all feel really much blessed to have you here in Holland as you're proceeding further to Somalia. It's very sad to hear, obviously, that your father, the great Sheikh, passed away. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah subhanahu wa ta'ala, whoever He has created has to taste the death. But alhamdulillah, very few words I would share, very few words. There's not much time remaining, and great scholars have already spoken and showed and presented their tribute to the Sheikh. But I would say that alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, Surah Yasin, that there's one verse that I would translate and say that Allah subhanahu wa ta'ala said, Inna nahnu nuhyil mawta. Obviously, from the death, creating back into life, that's the power of Allah subhanahu wa ta'ala. And everything that we do in good deed, we send forward to Allah subhanahu wa ta'ala, is being recorded in Imam Mubin, the great book by Allah subhanahu wa ta'ala, wa atharun, and the effects that we leave.
I think the most important thing is that the great effects and the great work that Sheikh's father has left behind, I think people will cherish from that for years. And it is a great challenge for a son, obviously, to carry that further and pass the message and the hard work of his father to carry that further to the community, to the Muslim community. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alayhi wa sallam said in the hadith, إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ إِنْكَثَى عَمْلُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ عِلْمٌ نَافِعٌ يُنْتَفَعُ بِهِ النَّاسِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. Obviously, three things never finishes when a person leaves the world. The sadaqah jariyah, the great work that we do for Islam, the dawah work, we keep on receiving the blessings until the morning of Qiyamah. And the knowledge, ilmun nafi'un, beneficial knowledge that we teach to other and pass over the knowledge of Quran and Hadith to other Muslim brothers and sisters. And the third thing is waladun salihun yad'u lahu. When Allah has blessed a father, a mother, a pious child that can do dua and for his father, for his mother, parents, father and mother cherish that and takes great benefit in the grave until Yawmul Qiyamah, the morning of Qiyamah. And we are assured that alhamdulillah, and the Sheikh that has come from Canada will, obviously, take the work of his father further, and alhamdulillah, on the great way that he done the dawah work, and he benefited many people, thousands of people in Somalia and around the world with his knowledge. Really sure that his son will take over that and will carry on doing the dawah work and make it into a great sadaqah jariyah. And obviously that every gathering that he is gathering and praying is a dua for his father, is a maghfirah and a hadiyatun lil amwat min al ahya'i. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said that a great gift that we can give to our families who already passed away and our presence in their grave is du'a maghfirah, that we ask forgiveness, that we do dawah work, we raise our hand and we do dua, and obviously we pray for them. In this way they will be very much blessed. I hope that the Sheikh will have a safe journey back to Somalia, take over there and follow the foot. dadku waxay yidhaahdaan gabar nebi dhasho waa dhammays. waxay la tahay ninka shiikha oo dhallinyarada ah oo dariiqadii loo duubay soo socotay ilaa waqtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo la yimasanaa ilaa fatxu raxmaan ilaa jaamacad buu ka soo baxay. horta diinta waxay u tahay farxad bay u tahay, halo dariiqadana farxad bay u tahay. ilaahay noo ayid. waxaan moodaa dadka caqligu waxaa la yidhahdaa waa caqli qariisiya iyo caqli iktisaabi ah. caqliga qariisiga qofka ilaahay markii hore ku uumay. caqliga iktisaabigana hadda waxa weeye carrada lama mara qul siiru fi ardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu mujrimiina ilaahay yidhi. waxa weeye waxaa laga helaa carrada iyo socodkaa laga helaa. waxaan moodaa galabtay waa kugu tufannay insha allahu tacala, ashraaftu waa kugu tufeen. waxaa wadataa dadku waxay yidhahdaan saddex baa layska ilaaliyaa: xamrane iyo xamlane iyo xaqli. saddexaas waa layska fiiriyaa. ninka xaqa xambaarsan oo kitaabaha sida intuu kuminkaaro arrintaas iska ilaali weligaa. xaqlana waxaa la yidhaha ninka la dulmiyey. qofka la dulmiyey hadduu ilaahay baryo horaa ilaahay ka aqbalaya, isagana iska ilaali baa xaqla la yidhaha. xaqiisa iyo dhulkiisa ha qaadan adug. midna waxaa la yidhaha xamrana waa lagu tufta, ummadda lagu tufatay, buuq baa lagu yidhi. hadda sheikhan dariiqa wax badan soo socotay oo abaar badan laga dhaxlay oo sheekh hebel la yidhi gaabta dhaxlay. ilaa diid ilaa qiyaamo socota ilaa barik rabbi. waxaan moodaa isagoo aqoon-yahana oo maanta alifi kara, kutubihii alifi kara, oo shiikhu dariiqadii uu ka tegay dib u sii wadi kara, oo dariiqooyinka dhan miday kara in loo dhiibaan moodaa.
arrintaas waxaan shinsanaynaa insha allahu tacaala waqtigu waqti culus weeye laakiin nin baa wuxuu yidhi leg weeye dheellaabaha ku cuna walaalo leg loo kiciyey leg weeye dheellaabaysu kuu geli dariiqo culus baa lagu dhiibay sheekh galabta waxaa tahay naayibo rasuuli baa tahay mashaaiqdii baa kugu tufeen weliba galabta meesha lagu duubtay daartii maaha daartii aan joognay waa daar kale fadli kale iyo karaamo kale sii leeda arrintu meel qariib diinta ku tahay baa lagu duuba meel qariib ay ku tahayna waa ka timid marka waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala midaayaha wadankii soomaaliya iyo dariiqooyinka miday doona inuu adiga noqdo meeshaad joogtana wax rasuul ka sokeeyana laga soo qaadin sala allahu alayhi wasalam in ahlu sunna waljamaaca iyo afarta madhab laga sheekeeyo maaha wixii ka sokeeya inaad tirahdo joojiye maanta diintu waxay rabtaa midnimo waxay rabtaa in loo midoobo ciddan waxaa la yidhaahdaa soomaaliya waxay shaaficiy geed weyn oo shaafici la yidhahdo u baxay bay iska harsanahayeen diintu mid bay u ahayd dhib ma qabin ninba buu dhex lahayey dhib la-aan bay kusoo gaartay dhib la-aan buu ku qaatay dhib la-aan buu ku tarabiyoobay tusbaxaya dariiqan talisi xale maandha waga xale markaad tukataan intaas ah jimcada haddaa rabti rasuulka araggiisana waxaad akhri sala allahu alayhi wasalam rasuulkooda iska haystaan adduunyada kama baana birbir iyo mataqaana iyo umuur kalama maqna ayagoo halkaas maraya waxaa wadaan ma jiraan ukadi naweytu faradal wuduul waa baatil naweytu soo maqadin waa baatil waxaa la yidhi ruwaag waa xalaal culimada hore idima sheegin ruwaag waa xalaalo wey culimadii hore ma sheegi jirin godka haddii qofku lo xabaalo shiiqa ah oo diinta faafiyey haddii lasoo bixiyo ajir baa laga hela culimada hore idima sheegin hadda qaataa layidhi dadka hadda markaa waxa ka kala qabaan mogta marka aad baan ugu begsanahay in dhallinyaro inaad tahay oo maanta mataqaanaa waayo arag ah wadamo badanna soo maray insha allah waxaan rajayn doonaa madhabkii shaaficiga inaad noolay doontid dariiqadina aad noolay doontid waxay haysteen culamadeenu karaami wax ku wareeg ilaahay ulaayuu siiyey faatixaday akhriyaan iyo ishaaraday galaanba dhag farta laga saarayo maanta marka dad kala yimid oo wixii hore walbalukaadi iyo wixii hore ma saxnayna yidhi ragga uu raba inay ka hortagaan waa adig cilmigii waad leedahay tacliimtii dunawigaadi waa leedahay midnimadii waa leedahay waxaan kaa rajaynaynaa insha allahu tacaala raggeennii hore wax ka bedela inaad keeni doonto insha allahu tacaala ee la arka kuwa diinta islaamka aan soo gelin laa ilaaha ila allahu wejigaa ku islaama hortiisa cilmiga iyo fahamkaaga ku islaama allah ku siiyo aad iyo aad baan waxaan usoo weydhaweynaynaa dariiqada weyn oo ballaaran iyo wiilka yarka ah oo 30 jirka oo maskaxda fiican leh oo mutacalimkaa galabta loo doortay waa idin hambalyaynaynaa dariiqada saalixiyada waa hambalyaynaynaa reer shacab idriis baan u hambalyaynaynaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa halkii rasuulkaa lagu dhiibay ilaahay taamkaaga dhigo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iga raalli ahaad يا سندي يا مددي كلي على العدا معين ناصري كلي على العدا معين ناصري جنابك البني عناد الزيلعي جنابك البني عناد الزيلعي عبيدك المسكين يا ابن الطاهر عبيدك المسكين يا ابن الطاهر آله وصحبه الله 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 من ذكرهم الله 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 قل وذر الوجود وما حوى الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتدا بلوغك إن كنت مرتدا بلوغك فالكل دون الله إن حققته فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال عدم على التفصيل والإجمال فاعلم بأنك والعوالم كلها فاعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي المحلى لي لولاه في محو وفي المحلى يا رب
ربي يا حنان يا منان يا ربي يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ديان يا سلطان يا تقبل توسلنا بفضل محمد تقبل توسلنا بفضل محمد وبمن له وجه لديك وجاه وبمن له وجه لديك وجاه ثم الصلاة على النبي وآله ثم الصلاة على النبي وآله في كل يوم ماضي ومجدد في كل يوم ماضي ومجدد في كل يوم ماضي ومجدد إذا قلت يا شيء لله المداد إذا قلت يا شيء لله المداد أجبني سريعا يا سرنا أجبني سريعا يا سرنا الله فإن لم تجبني لا تهاوج لنا ومن غيركم لا تهاوج لنا الله الله إليك الصلاة بها تنقضي إليك الصلاة بها تنقضي ولبانة من نحو معطي الغنى لبانة من نحو معطي الغنى وآل وصحب ومن أنشدا وآل وصحب ومن أنشد هو ومنشئها فافصصا بالهدى ومنشئها فافصصا بالهدى الله إليك صلاة بها تنقضي إليك الصلاة بها تنقضي الله إلى أن يتوب المسيء وما إلى أن يتوب المسيء وما وتقارب بكر
أجري ببحر الثرى الله أجرنا من النار جود بالموت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وحبيب قلوبنا صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، إخوة الإيمان، إلهي سبحانه وتعالى عافية أنت حنوصا أسكتانا لكل المسلمين أنت أو لمطين الله والرحمة أنت كربيسنا مسلم أهل كربنا الله كفيرو وحاربا ما ديرينا إن شاء الله صدح قضب إن كهدنا ربامك كوات قضب كوهريو إن المهد إلين أجيريو دمان أنتي كقيب قادتي سودوينتان والله إيسامينا يو أنيقو شيخ طريقة صالحية هذا الله دورتي وماشان أن ولقي سومر المانتك يوخي هويسو دمان مشايختي كسو قيب كشي أشرافت أغهريسو يو أنتي محبين أنتي والدين أنتي ولالهيك فك يدمر بوحد الله جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. الله إذنك أبا المريو وحلوكم الموت وحلو خير بدن حبي في الله وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتزاورين فيها والمتجالسين فيها. أيها الله سبحانه وتعالى حديث القدس وكيري محبتي سوحة واجب نقطة إلهي كو إلهي درتيس اسكو جعلاده كو إلهي درتيس اسو فريستو كو إلهي درتيسي كوضا شاكيستان اسو زيارتان marka Allah naga dhigo yawma la dhilla illa dhillu kuwi loo halka loo harinayo Allah naga dhigo maadaama aan hadda meeshan aan ugu kulmin dawlad ama siyaasad ama wax khusayso aysan ku wada kulmin dhamaanteena oo aan u wada kulanay diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo jaceelka nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo jaceelka culimada darteeda تاوى مهدلين لما انتكسر في شيء مشايخ شرافته يقولوا مضى والدين تودن وحمد الله جزاكم الله خير الجزاء تعصى إليكم فلان ويقف إلهي أجازيه جازين كون ملها مثل لبعض وحارب إخوة الإيمان إن الوحي أسكفهم سينه طريقة صوفي أي ليلة صوفية ليلة معناها الصوفية دين الإسلام كانت وجرا ملبوك وجرا قرمو صوب اللوضي وحان خليف لليهي ونص خليفة خليف لماذا كان يقول بدلاي ما دين الإسلام كأصل ما يكون لهذا ما دام أن حط النهي ضد أمان محبين النهي لكن ضد كلا كوي دين كراه أو إريجاس إلى من أصاب ربا إن إلهي سبحانه وتعالى دين كالوحو أصاب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه نبي محمد تركوا الله صلى الله جهد يوبحيي islaamnimadu dad ugu yeeray iimaanku dad ugu yeeray acmaashii iimaanka ayuu dadka baray khaliifnimada markaan ka soo bilowno nabi maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh markuu geeriyooday ayadoo nabiga la aasin ayaa khaliif la qabtay waxaa loo qabtay waa diinta ilaahay ma socon karto qof oo wakiil diinta ka ah hadduusan jirin
markii sayidina abubakar sidiiq la doortay oo khaliifnimo loo doortay kadibaa nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi la aasay waa khayru daliil rasuulku wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi culamada khulafaa uraashidiinta raaca uu yihi caduu calayha binnawaajid sunnadooda sunnatii wa sunnatu khulafaa uraashidiin almahdiyiin ayuu yihi waa khaliif ninkii qabta ugu horeysay ama loo qabto wuxuu ahaa abubakr sidiiq radi allahu canhu afar noocaa lagu dooranaa khaliifnimada afartiiba waa khulafaa uraashidiinta kasoo bilaabatay in la fadhiisto mashaa'ikhtii duruq ay fadhiistaan oo nin la magacaabo la doorto la camaamad saaro marka labaad in oo la yidhaahdo ninkii khaliifka ahaa uu yidhaahdo ninkaana wakiiliga ah uu yidhaahdo waa sidii sayidina abubakr sidiiq radia allahu canhu waardaah u yeelay sayidina cumar u yeelay wuxuu ku yihi adaa khaliif ah waana lagu raacay ama in guddi loo saaro oo aima ah loo saaro guddigan mashhuur ah lagu sameeyo shuurada markaad ku samaysaan guddiga ninkan ayaa khaliif ayaa khaliif ka dhiganayna ay yidhaahdaan waa sayidina cusmaan ibnu cafaan sida laga doorto ama nin oo ahlu beyti rasuulillaah ah xaggiisii in loo eexiyo waa sida sayidina cali bin abi aalib laga doortay khaliifkii min ladun laga soo bilaaba nebi muxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo khaliif ilaahay ka soo dhigay khaliifatan fi lardi uu xaqiiqo ka noqotay ayaa soo socotay ilaa sayidina junayd albagdaad ilaa yowmina haadaa socota sayidina junayd albagdaad waxaa la yidhahdaa sayid dariiqatu suufiya sayidatu daa'ifati suufiya cilman wa camalan aa la yidhahdaa soomaali haddaanu nahay laba wadaa diinta naga soo gashay diinta laba wadaa naga soo gashay tii labada wadaba waxay ahaayeen ahlu sunna waljamaaca ay ahaayeen madhab min jaanib iddiin markaa yidhaahdo waxay ahayd imaamina shaafici radia allahu canhu allah raximahu llah waa sidii hadda sheekheena sheegay salawaat radia allahu canhu imaam shaafici ayaa madhabteena keenay wax allaala wixii lagu dhaqmaayo fiqhi ah oo diinteena khusayso wuxuu keenay imaam shaafici wax allaala wixii qur-aan ku saabsanna abi camr ayaa qiraa'adiisana soo gaartay labadaba waxay ka mid yihiin min ajilaa'i culamaai suufiya ay ka mid yihiin suufiyada waxaa la yidhahdaa magaceeda maxaa waaye waxaa la yidhi dadka qaar waxay yidhahdeen waa qalbigooda ayaa saafa ahaa saasaa suufi loo yidhi waxay xiran jireen suufi magac keligiisa meeshaas dhig cabdullaahi dhe cuthmaan dhe cali dhe cumar dheh war magacaan intuu ugu jiraa diinta islaamka magac wuxuu ugu jiraa diinta islaamka waa diinta islaamka 3 rukniyaa leedahay 3 arkaan ayaa leedahay alislaam waliimaan walixsaan cilmu lfiqhi waxaa laga qaatay ama loo fuliyey waa islaamnimada salaada ha noqoto soonka ha noqdo zakada xajka mucaamalaadka safarka wax allaala wixii daacada haddii noqoto buyuucda ha noqoto waa cilmu lfiqhi cilmu tawxiid oo cilmu lcaqiida hadda la leeyahay oo hadda dadkan oo weligooda caqiidaba uusan garanaynin sayidina xasan albisi uu soo bilaabay uusan garan ashcari xasan alashcari soo bilaabay ashcariyiin uusan garanaynin meel caqiida kasoo bilaabatay uusan jirin ayaa hadda sheeganayaan cilmu caqiida mar allaala markaad baragta caqiida ay kula hordhigayaan war caqiida mar rasuulka mayuu ogaa cilmu caqiida rasuulka ma ogaan cid allaala ciddii leeyahay cilmi caqiida ahaa rasuulka zamankiisa jiray meel allaala meesha jiray telefoonkayga ayaa laaya ha imaado anaa u jawaabaa ama xadiis hash keeno ama aayad ha keeno ma jirin cilmu caqiida nabiga salawaatu waxaa lagu tadbiiq waa jiray nabiga laa ilaaha ila allah wuu oran jiray oo u meerin jiray laakiin cilmi oo kutubo leh ma jirin
يا إلهي بالمصطفى جب دعانا بالقبول يا من يجيب الدعاء صل على حبيب محمد وعلى يا أبا القاسم الكريم فبدني بيمناك الكريمة البيضاء ربي صل على الحبيب محمد ساكن الروضة الشريفة فسي منك جل الوصيلة العليا ربي صل على الحبيب محمد بأبي بكر الذي زاد فضلا عن جميع الأصحاب والخلفاء رب صل على الحبيب محمد وبفاروق الشهيد الحمام سيد العادلين والحكماء رب صل على الحبيب محمد وعلى بعثمان الشهيد قارئ القرآن قيم الحق قدوة الشهداء رب صل على الحبيب محمد وعلى بعلي الشهيد عالي المفاخر عالم العلم عدة اللهفاء رب صل على الحبيب محمد وعلى وبآل النبي أفضل آل بيت الرسول هم شرفاء رب صل على الحبيب محمد وعلى فجميع الأصحاب أهل المناقب هم شموس المعارف العرفاء رب صل على الحبيب محمد وعلى بالرئيس النفيس سبط إدريسي سيد الأولياء والعرفاء رب صل على الحبيب محمد وعلى بالرشيد المشهور شمس المعارف مرشد السالكين والفقراء رب صل على الحبيب محمد وعلى وبغوث الفريد فرد أستاذي سيد الشيخ قدوة الفضلاء رب صل على الحبيب محمد وعلى وبابن الحسين حاب الأنام هدينا الحق حلة العلماء رب صل على الحبيب محمد وعلى بالحبيب الحليم حاج إبراهيم ساكن الفأس سفوة الأصفياء رب صل على الحبيب محمد وعلى بالفصيح الفهيم حاج فقيه فائق العلم فرحة الفضلاء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء وعلى الآل من هم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وراك الجراية شبه الجراية إبك الله نقاضه إبدي ميت يدب أدنيا يا جراية إبك الله نقاضه إلهي سبحانه وتعالى الباب كيسي واسع ويان عطيديس واسع ويان إلهي سبحانه وتعالى إبك سومالي الله كقاضه إلهي كوي إلهي أولا بتين وعقيدة الله صحيحة أولا بتين الله كدب إلهي أونك وراب الله كبدله عنك نبض الله كبدله عذرك عافية الله كبدله إلهي وإنه واحد وضع كبرنا إلهي وعنتنا تاقن تاي غربان جوغنا محبين بدنا ميشان جوغتاي dhammaanteen adaa ku baahannahay fuqaraa ila allah nahay ilaahu adaa ku barina gacanteena adaa ku soo taagnay ilaahu gacanteena taagan ilaahu ayadoo maran soo celinin ilaahu dhammaan Soomaali dhibka ka saar maanta
إله مسلمين تودن عام نما إله دبك كسار إله مال والمسلم كل من يا إله مسلمين دبك كسار إله عام المسلمين إله كسار إله خاص نما دتك ودب بيسن ولا دلينا إله دبك كسار إله دتك لا دلينا إله دبك كسار عفو يا عفي الله نصيب أنت ماشي كسوق بكشيء جنات الفردوس الله نقول كل إله الفردوس الأعلى إله نقول كل إله الفردوس الأعلى إله نقول كل أنا كو أشرفت أنا وضنا علماء أنا وضنا أهل بيت كان وضنا والدين أنا وعليها دمر كان يحكي إله جنات الفردوس اللهم صل على سيدنا